ninka la yiraahdo farmaajo social media la jiray qaara meel ka dhigan jira hadda laakiin no kama dhigan karibo maanta wadankeena anagoo noo baahan inaa wadamo kale oo shisheeye ah qurxino wax qurux badan ma ahan anagoo wadankeena hay ka dhigi karno xitaa like sanadihii la soo dhaafayay sida wadankeena u dhiseen maalmahan dambe ama sanadahan dambe ma u dhisno so like haddana lacagihii iyo wixii dhan way isbedeleen lacago kale oo ajaanib isticmaasho anaga isticmaalnaa anagoo wax samaysan karno oo awoodno like hadda sidii hore lacagta qaabka aani ahaan shakhsiyadeeda iiga bixi jirtay hadda ma iiga baxo like waxaas arkaa anoo lacagii hore ebilsay meel qaara meel ka dhigan jira hadda laakiin no kama dhigan karibo iyadoo israacada la arkaa like wax badan ay isbedela dhihi karaa wadankan uu qurux badan yahay hadaa si qurxino saan inuu ka hormarsanaahay aaminsanahay waxyaabaha dadka anaga like nusqaan ina ku keeno wax qurux badan ma ahan baan anaga wadankan qurxin karno ina wadamo kala dhisno wax qurux badan ma ahan because hada anaga wadankeena maanta diirada saarno oo go'aan ku qaadano ina dhisno waxa aaminsanahay wadamo badan ina ka hormari karno sida hadda Kenya oo kale meel qaar waa ka qurux badan nahnay soo dad fikiray oo wadankooda ina ugu tagna ku badan hadana wadankooda dhisno wax qurux badan ma ahan sidii hore hadii lagu daro wax badan waxa aaminsanahay in wadankan qurux badnaahay tan kale lacaga israacayaan barakadaro maal dhahaa mise waaba aamini lahaa aniga hadda go'aan waxa ku qaata ani lacagtii soo gali jirta waalidkay soo gali jirta hadda ina shaqaysta go'aan ku qaata si aan u fikiro hadda maxaa qabtaa shaqa baranayo saa u shaqaysto dabcan wal dhigi karaa sababtoo lacag adaa samaysan lahayn waxa lacagtan inay noo barkooda macquul ahaa laheedbo qof wadan walba lacag gooni u leeyahay magtahay anaga laakiin APC oo dadka leeyina isticmaalaa هذا مقعد وحالي يا حمزة وحاول العقل أنت بدنا وحكيت أنا إنسان قبو ميديا يا دتك جهورسي سوشيال ميديا يا يري معناها وطن كان ولا قحيا بربنا بدن بجرو دتك إدل وحيوقع معناها دبده هذا مركز اللي يرادو دار السلام معناها والاسم جرتي وحي إدل هذا دتك كليا تاكس وحكينا ميديا ساعني قبو marka inay macnaha qolooyinka media ay wadanka waxa adduunka idil ka jiro waayo wadan kaliya ma ahan adduunka idirso ama wadamada reer galbeedka marka tagtid media waxay yiraahdaan ayaa dadka ku dhaqaaqay nin walba lacagtiisa dawaa haysta jeebka u gashay inuu sidii gareey ma rabo haduu dhisma ahaato hadii macnaha ninka Soomaaliga maanta wuxuu jecel yahay waxbarasho inuu wadan kale u aado waxbarashada wadanka macnaha waa liita wadankan waxbarashadu waa iska fiican tahay alxamdulillah marka aniga waxaan qabaa ra'yigeyda in macnaha wadanka lagu kalsoonaado oo loo soo noqdo dadkan hadda ku haminaya inay aadaan wadamadan oo Kenya oo kale Uganda oo kale ama inay macnaha wadanka ay wax ka dhisaan saasan qabaa waxaan aaminsanahay dadka ganacsatada macnaha wadanka dhisi lahaa argagax la geliyay oo macnaha ay leeyihiin nin walba niyada uu ku hayo macnaha inuu dibadda aadayo taasan qabaa aniga laakiin dadku waxaan ka codsanayaa inay wadankooda aaminaan ilaahayna aaminaan ninka la yiraahdo farmaajo social media la jiray social media kor u qaaday waa bambooniyaan adduunkan wax ka jiro nin walba macnaha hadda marka tiraahid wadamadan reer galbeedka oo kale ninka macnaha farta ay ku fiiqan social media ninkaas ma guulays waxyaabo la bamboonay waa jiray wax waa jireen runtii oo macnaha nidaam laakiin dadka hadda argagax baa galay argagax macnaha waxa keenay waan social media kana saasan qabaanay bambooni farmaajo oo macnaha waxyaabahaas lagu bambooni ay social media ay aabo tahay dadka idilna macnaha niyadooda macnaha Soomaaliya la soo galay waxaan codsanayaa dadka social media inay bedelaan wadankooda macnaha wax yar baa u dhiman in wadanka macnaha la soo aado oo la soo maalgashto taas aan rajaynayaa